maray meel miyi ay deganaayeen marka jaceyl baa dhex maray sidaad og tahaybo dadka miyiga joogo waa dad mashquul badan gabadhana waa gabar mashquul badan bay ahayd oo haddana raja ah oo hooyadeed ay dhimatay inkastoo aabaheed uu reer kala yeeshay laakiin marka ayada ah gurigii hooyadeed ayada bas ay dhashay ayay ku weynaatay guriga ayada basaa ku hoyanaysay wiilkana wiil xoolo jir iska ahaa oo marka ayada asagana reer kale ah marka waxay u kala dhasheen laba cid oon micnaha marka ayada aan isku dhoweyn bay ka kala dhasheen sheekadii waxay dabin socoto wiilkana meel dheer buu uga soo kici jiray gabadha baadiyaha waa la isku lugaya habeenkii marka habeenaha ka mid ayaa waxaa dhacday wiilkii gabadhii ayuu u cudur daartay wuxuu ku yidhi ina adeeray waxaan jeclahay in aan eegadan soo gebagabayno arrinteeni oo maaragtay aan sheekadii gunaanad aan eega ka dhigno oo aroos aan u gudagalno eegadan walaala waxay tiri caawa kuma raaci karo waad dareensanta umalin gabdhihi waayii hore waa lala roori jiray wax yar intaan ka ahayn inta badan waa lala roori jiray gabdhaha roormada micnaha waa dareemi kartaa umalin dad badan waa micnihii gabdhaha inta lala sheekaysto jecel lagu abuuro la kaxeeyo lasoo mehersado kadib dib loo soo celiyo raaligelin laga bixiyo xaal iyo xumaan iyo wax saas marka gabadhii waxay tiri caawa kuma raaci karo cawo damba nooga dhig cawo damba igu soo noqon waan isdiyaarini waan ku raaci nacam wiilkii wuu laabtay gabadhii ballanka wuxuu ka qaaday micnaha xitaa yani inay wax kale micnaha excuse kale ay sheegeen micnaha igaral noqo ay sheegeen micnaha cudurdaar kale wuxuu ku yiri micnaha aragtideena labaad ee ani adi bab inaan isku siino hadalka ma keeni karto asraacina sax ayadan waxay tiri ballan waay ballankana aad baa loo qiimeyn jiray ballankan waagaas ballan qiimo loo ahaa wiilkii meeshiisii buu ku tagay waagii baa beriyey reerihii waxay u arooreen haddii ceelashii biyaha laga cabay ceelashii markii la tegey ayaa dadka miyiga waxay isku dagaali jireen biyaha dhibaato badan bay ahaan jirtay biyihii baa la isku gafay labadii reer way isdagaaleen dhiig badan baa meesha ka dhacay colol xun baa meesha ka dhacay maalinta ayada ahayd haddii reerihii way kala guureen waa lasi kala dheeraaday wiilkiina sida kalsoonida uu cidda ku imaan jiray eega kuma imaan karo waa la dilaya ciddi gabadhii soo ma ogid marka wakti dheer oo micnaha muddo 2 sano 3 sano kasoo wareegtay maalin maalmaha ka mid ah gabadhi oo or dabar furayso orta waa geela ay ku cidda lugaha marka laga xiro dabarka marka laga micnaha si u foof dheereen oo meesha meel fog waadin ayadoo dabar furaysa amin gaaban ay roobna uu horan yahay wiilki iyo laba wiil oo kale oo hubeysan oo qoryo wataan ayaa meel gaaban bud iskaga soo dhaxeen bab markii indhaha la isku sii heblay noqotay sheekada ballankii muxuu ahaa buu ka bilaabay nacam aminkaas waxay tiri waan ogi kamana bixin laakiin 3 ma dhaceyso sax 3 ma dhaceyso anoon adig kula soconin reerkiina kuma laabanaysid nacam anoon oortan ka gelbinin dugaagana kuma raaci karo sax waa in cidii aan ku laabto isla marka ayada shay waxa jira aan la'aantiisa ku raaci karin buu hooyadii iga dhimatay iga dardaarantay bahal saabduul la dhuhu marka ay shayga aad loogu xirxiro macnaha guriga geeska yaala saabduul dadka dhan ma garanayaan gabadha waa gabar gaari ahayd oo aqal leh haddana aqalka say u sameynaysay aqalka zaid buu u weyn yahay maadaama aqalaha kale ilmi iyo wax ka dhex buuqayaan rag hubeysan ciddi u joogo oo rag ciddi ilaalinayay wiilashina ay wada eegadan way soo waday waxay ku tiray naftiina khatar bay gali sidan baa jirta arrintan baa jirta waana la dili karaa geed ariga uu hergalo geed weyn oo cidda ka yar duruqsan oo malaha adi 500 tilaabo u jiro ayay waxay tiri geedkan roob soo socda culus waan isa soo diyaarina geedkan gala hoostiisa markuu micnaha aan isa soo diyaariyo kabtan idinku imaan kabtan idin ka raaci waan bixina wiilashii geedkii bay hoos galeen roobkii baa soo daatay wiilashii hubeysnaa ayada ay ilma adeeraha iyo walaalaha ahaayeen waxay ku soo carreen aqalkeeda maadaama aqal weyn uu ahaa gurigay soo galeen gabadhi way isdiyaarisay waxay samaysay caanay listay dira caanay listay waxay gelisay ooda ariga waxay ugu talagashay ragga martida ah oo aan la ogeyn ayada si uu ah shahbay karisay way garab dhigtay waxooda way u diyaarisay wixii lagu sii lugaan lahaa caawa maadaama masaafo dheer raggan ay u socdeen rag socotay ahaayeen oo rag haraasan ay yihiin cidna lagu soo dhoweyn karin oo ilaa dagaal baa cidii jooga rag hubaysanaa guriga jooga marka wiilashii waxay sameeyeen way yar qarqareen kastoo hubaysnaa iyada la dhasheen gurigoodii ciddooda joogeen aqalka dhexdiisa maadaama aqal weyn u ahaa dhul dhacda meesha la dhaho ayay dab ku shiday wiilashii way kulaaxayaan gambarey u dhigtay saasay ugu weegaarsan yihiin waan u sheekeynaysaa micnaha marka ayada uma sheekeenno waxaan kale ku mashquulsanaa xoolaha iyo wax bay lisaysay gudaha markay soo gashay oy tiri adeegii eega qaado giraan iyo caanaana sii qaado wiilashii usii tag ee istire ayaa waxaa dhacday wiilasha ka mid ah maadaama gabadhan ay ahayd gabar caaqil ah ayuu xagga kale ka hadlay wuxuu yidhi heblo intuu qoslo wuxuu yidhi caawa inaad noo sheekaysaan aad u jeclaan lahaa nacam
sheeka markay tiri wiilkii gabadha ay ballansanayna geedka joogo wuu sugaya gabadhii sax geedkii wuu ka soo baxay sax wuu soo socday roobkina wuu da'ahayaa shanqarta waxaa yarayso uu ku baxsado waxay ahayd shanqarta roobbaa zaa'id u da'ay biyihii wuu soo dhex qaaday dhabajalq nafka ninkan jaceylkaa ka tambatay ismaba ogaa wuxuu samaynaya khatarta xataa waa iloobay gartay marka markuu aqalkii sintiisa maraayo aqalka ducdiisa maraayo ayuu wuxuu maqlay gabadha hadalkeeda sheeka macnaha wiilkii la hadlayso kii gudaha u jawaabaysa dufulkii ayuu kor u qaaday docda ayada ay fadhidu istaagay docdu gacanta ka geliyay qanjarufuu dhab siiyey wiilkii iyada sugayey wiilkii ayada geedkii uu sugay isla baxsan lahaayeen gabadhii buu qanjarufo docda gacanta uga soo geliyo dhab buu siiyey calaashan soo bax waay haa hadday dhahdo cabaado naftiisa khatar ku jirta waa la dilaya haa xanuunna wuu qabtay gabadhi way dareentay xanuunkii nacam marka gabdhaha waqtigan joogaan hadee iska cabaadayaan ayagoo waxba arkin oo bahalba ay taabtay cabaadka meeshan ma ahayn gabar calool adag oo baadii joogtay gabar caaqilna way ahayd oo karti leh aminkaasay wari dhegeysi la soo boodo marka kii ugu naxay gacanta uu dib oo la laabtay haye war iman qalbay tiradan kula hadlaa aminkaasuu yiri maxaad u qaylisay heblo noo sheekay sheekada waan ku maqlaay waan ku dhegeysanaa haye inta ka hor baa waxaa dhacday tiri haye wiil iyo gabar ayaa si dhab isku jeclaadeen haye nacab ayaa jiray oo reerkooda ayaa u diidanaa wiilal ayaa la yidhi ilaaliya oo ninkaas hadduu gabadha u umaado dila haye wiilkii gabadhii meel bay ku ballansaanay igu sugtiri haye alaabay u diyaarisay caanay u diyaarisay waxbay u diyaarisay meel kasta wax u kala habeysay aminkaasay waxay tiri yuu wiilkii intuu sugi waayey gabadhii ninkii iyo gabadhii oo wada hadlayaan iyo intuu docda soo istaagu qanjuruuftay tiri sheeko kale ka dhigtay nacam oo ayada macnaha inta ka hor dhacay rabtaa wiilka inay wax fahansiiso kaasay la hadlaysaa wari dhegeysay leed ma fahanti gabadhii sifo wiilkii loo dilin baa waxay tiri maadaama ay wax u diyaarisay oo u soo socotay ayaa waxay ku tiri gabadhii ayadaa dhehaysaa marka hadday la hadlaysaa waa live sheekada live ay u dhacaysa wax hore u dhaca laga dhigaya war may maqashaabay tiri macnaha wiilkii bay ku celisay markaasuu yidhi waan ku dhegeysanaya si fiican sheekada ugu socotaa walaalkeed baa dhahaya haa kii ilma adeera ahayna hubaysan sheekadana waxay ku socotay maqlay socotaa kaas jaceylkeeda dhigtuu tagaya haye aminkaas waxay tiri war hadday gaajo ku haysa giraha ooda ariga ku jira la bax hadday taada gasha guriga soo gal ha lagu dilee haddaad guur u jeedda geedkii igu sug anaa kugu imaana xarfaankan wuu faa'iidayste isla markii tallaabada hor u qaaday girihi caanaha wuu la baxe wuxuu sii aaday geedkii gabadhiina geedkii wiilasha qosole u kala daateen wallahi sheeko khatar waa camal wax dhici karaba uma malaynayan waxaan life bay u dhacayeen sheekada uma haystaanba ilaa laba qofaa meel ku wada hadlaya haye gabadhii wiilkii way ka daba tagtay geedkii bay uga daba tagtay way isguursadeen xitaa waxaan maqlay sheekada sheeko dhab u dhacday oo micnaha reere inay noqdeen aan waa tahay ka baxay aad baad